السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا وركي تيفيغا سومالي كيبل oo inkaga imaanaya xarunta TV-ga ee magaalada Nairobi. Warkana waxaan la socodsiinaysaa Kowsar Cabdinuur Adana. Qodobada ugu waaweyn warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu xariga ka jaray shirkad ka shaqeyn doonta nadaafadda gobolka Banaadir. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo dalka dibadiisa ku maqnaaya waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. gudoomiyaha hore ee gobolka Bari Cabdixaafid Cali Yuusuf ayaa garowa waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax xubin baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. munaasabad lagu soo dhaweynayay xubnaha galmudug ee ka mid noqday aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay magaalada Cadaado. Sheekh Mukhtaar Sheekh Ismaaciil oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ariga wadanka Ingiriiska gaar ahaan London ayaa waxa walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanada Puntland iyo Galmudug ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada. kuwaasi waa qodobada warkayga ugu waaweyn. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. warkii oo fidsan. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jaray shirkad ka shaqeyn doonta nadaafadda gobolka Banaadir sida warka inoogu soo dhawriyaheena Zainab Maxamed Aadan. munaasabadani uu ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada dowladda Soomaaliya shacabka kala yimid degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir iyo fanaaniin ayaa ahayd mid xariga looga jarayay shirkad lagu magacaabo Eco oo ka shaqeyn doonto nadaafadda degmooyinka gobolka Banaadir. munaasabada oo laga jeediyay hadallo kala duwan ayaa ugu horeyn waxa hadal ka qaatay gudoomiyaha shirkadda Eco Cabdikariin Yuusuf Xasan waxa uuna ka warbixiyay waxa ay qabanayso shirkadan. shirkadan Eco maaha wax iska bilaabmay, waa shirkad ku salaysan sirmeysan looga shaqeeyay oo ku aadan nadaafadda iyo bilicda soo celintii magaalada Muqdisho. waayo waxaynu dhammaanteen ognahay Muqdisho inay tahay caasimadii waddankeena, bilicdii waddankeena. marka sidaa daraadeed waxaa noo muuqatay annagoo dhalinyaro badan ah isu tagnay qaabka kaliya aan uga qayb qaadan karno inuu noqdo bal waxaan dadku ay wadakada noogan yihiin ee ah inay dhacdo in dadka guryahooda ay qashinadii hortooda ku abuuraan ama dhisiiskii ama cudurkii ay gurigooda hortooda keenaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu sheegay markii uu la wareegayay hoggaanka gobolka Banaadir ay nadaafad dari ay ka jirto gobolka Banaadir balse hadda nadaafadda gobolka Banaadir ay roon tahay. maalintii xilka aan la wareegay muddo yar kadib ayaa waxaan dhex marmaray magaalada Muqdisho degmooyinka kala duwan. waxaan arkay nadaafad darro baasan ee magaalada dhex taal. runtii waan qaado waayey. dadaal kasta markaan bixinana waa ka guulayso weynay, si dhaqsi ah uga guulayso weynay. kadib waxaan ku fikirnay markaan la tashaday asxaabtayda in aysan lagama maarmaan tahay in aan u astayno shirkad aan siino. ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay in shirkadaha shaqooyinka ay qabanayaan ay ahayd shaqooyinka dowladda isagoona xusay in ay ka shaqeynayaan danta guud. inaan aad iyo aad loo dhiirigeliyo lahaanshaha gaarka ah oo shirkadaha gaarka ah ay qabtaan adeegyo badan oo shalay ay dowladdu ay qaban jirtay. waxaa loogu dhiibayna macnaheedu wuxuu yahay sidii dowladdu ay u qaban jirtay si ka qurxoon, ka dhib yar, ka maslaxad badan inay u qabtaan ayaa la rabaa oo la daba taagnaado oo wax gaara oo qof gaara uu ka fikirayo dantii gaarka ahayd iyo midii guud in la isku xiro oo isku xirmaana la rabaa. hawsha la qabanayaa waa hawl dan guud ah laakiin dan gaara oo dad kale Soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa ku xiran. Zainab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa sidoo warbixinta warkan Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Faysal Fifa. waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda geeyiga Soomaaliland si diiran loogu soo dhaweeyay
madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo in muddo socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa. wafdiga uu horkacay madaxweynaha oo ay kamid ahayeen hogaamiyaha xisbiga kulmiye xubno kamid ah golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayaa markii ay soo gaadheen xarunta qasiga madaxtooyada waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland. inta kadib waxa madaxweynuhu salaan la dhexmaray dadweyne tira badan oo soo dhaweyntiisa saacado badan ugu sugnaa xarunta qasiga madaxtooyada kuwaas oo isugu jiray wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale madax tira badan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. intaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada wafdiga madaxweynaha. qaybtiisa hore muhiimka ah waxay ahayd wadanka Imaaraadka Carabta oo ay ogtihiin inuu baryahan inoo socdaan hawlo maalgelineed iyo mashaariic horumarineed oo labada dal ay iska kaashanayaan oo tii hore ay dhammaatay mashruucii ahaa dekedda Berbera iyo DP World waxaa iminkana bilaabmay wadahadallo kuwaasi la mid ah oo weliba ka qaraweyn wadahadalladaasi oo sidii tii hore iyadana aynu doonayno inuu dalkeennu gacansaar kala yeesho waddanka Imaaraadka Carabta dhinaca ciidamada iyo dhinaca maalgashiga kale ee tirada badan ee la xidhiidhi doono intaba oo sidii aad ka maqlay arkayseen shaashadaha iyo website-yada iyo Facebook-yada ama guud ahaanba media kala socoteen kulmiye oo cududiisii hore jirto oo cudud labaadna ku biirtay oo quwadiisu ay annagana farxad gelisay oo ay niyadiilo gelisay. cududaasi kulmiye iyo xooggan ku soo aragnay wuxuu ahaa midna farxad geliyay oo aanu uga mahadnaqayno dadka cagtiga Ingiriiska jooga wadamada kale ee Yurub iyo waqooyiga Ameerikaba Australia iyo wadamada Carabta intaba inaanu soo marno waa jeclayn laakiin waqtiga inta leeg in la wada maqnaadaana meesha kuma ay jirin laakiin markan maadaama jaaliyadda ugu ballaaran ay tahay ta Ingiriiska waxaan maray magaalooyin fara badan iyo dib u midayntii qaranka Soomaaliland oo dhan beelaha bariga qaarkood shir aynu ku qabanaynay Burco u diyaar garowgiisii iyo kooxihii siyaasadeed ee aynu inaga soo horjeeday wadahadalladii aynu wada yeelanaynay ayaa iyaguna garab socday oo shirar duceedyo hoose qaar hore oo la galay iyo qaar dambe oo la geli doono intaba si loogu diyaar garoobo oo loogu gogol xaadho shirka weyn ee Burco ka dhici doona. suuragal ma noqon in madaxweynaha iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga kulmiye ay warfideenada kula hadlaan iyagoo ka warbixinaya ujeedada socdaalkooda. mar TV-gan Somali Cable wasiirka wax ka weydiiyay sababta kaliifteen waxa uu ku jawaabay saatan. aad mahadsantahay waxa weeye anigu waad ogtahay waxaan ahay afhayeen senior marka codkaan kugula hadlaya waa cod rasmi ah welina codaan halkaa ka sheegay ma beelowdo min maalintii aad saxaafadda soo gashay ilaa maanta waxa weeye intaaba dawladdan aniga afhayeen u ahaa aniga iminka madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbigaba afhayeen u ah wixii kale uga baahnaydna ay weydiin Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa. علي عبد الله عصبلة ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha maamulka Hirshabelle. xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxay doorteen
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka waxayna u kala doorteen Cali Cabdullaahi Cosoble inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle halka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle loo doortay Cali Guudlaawe munaasabadan lagu dooranayay madaxda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin oo kamid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya doorashadan ayaa waxay ka dhacday magaalada Jowhar waxaa halkaasi ka hadlay Cali Cabdullaahi Cosoble oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu u mahad celiyay mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle waxa mahadle ergadi mudada aadka u dheer yani dulqaadatay adkaysatay joogtay halkan ku rafaadsanay qaar haddee dhibaatooyinka soo gaaray xataa aysan quruxsanayn caawo maadaama ay caawo farxad tahay in dib loo saxo gabagabadii munaasabadan lagu dooranayay madaxda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya mar walba waxaan aaminsanayn in reer Hirshabeelle ay dhisan doonaan dowlad goboleedka sababtuna waxay ahayd dowlad goboleedka dhismihiisu wuxuu qayb ka ahay dhisida federaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee aan ku heshiinay in la dhiso munaasabad lagu xusaayay maalinta SNM oo ah dadkii u soo dagaalamay xornimada Somaliland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida warkaan ugu faahfaahinaya Qadar Kaafi Muuse Cali munaasabad lagu xusaayay xuska maalinta shuhadada ee SNM oo ku beegan 17 Oktoobar oo sanad kasta laga xuso Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa xubno ka socday xukuumadda mujaahidiin marti sharaf iyo dadweyne kale oo tiro badan waxaana intii ay munaasabadu socotay madasha ka hadlay qaar ka mid ah mujaahidiintii SNM oo madasha ku sugnaa waxa xusuus mudan وكان ما تحرك فضل يكون إلى مطبع أي أبيشوا الشهيدين ومن تابعونا دورة الموت والإسلام الوالد كتابي ويكاين ونشتو تكوبان حديث كالسوريان أسأل إلى الإسكوت ويا سنو الوضعي قوتي هي ناوعة هي قوة حموسية سنوات الإدارة وإن المتنين كفر بدن نحوها سمينا السوريان ليسوا به ماذا وشقوي مذكرة ما يرى رأيي عقب قيلوا المهدى بشيء انتي كبا وعطي انتوا وحيوك غالبا يمعي إلى أكان ذلك الصومالي وحرعة ذلك الصومالي والنبضة ذلك الصومالي والديمقراطية ذلك الصومالي وذلك المليح والنبض iyo walaadi magacooda ka baxay ilaahay waxaan leeyahay uga baryaa inuu jannadii fardowsaka waraabiyo gabagabadii munaasabadana waxaa madasha shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah mujaahidiintii SLM iyo xubnihii iyagu madashani soo abaabulay Qadar Kaafi Somali Cable Hargeysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ayaa waxay cabasho ka muujiyeen habka loo soo xulay xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka Jubbaland uga qayb galayo sida warbixinta warkan inoogu faahfaahinaysa wariyahana Keen Cumar Makraan kulan ay iskugu yimaadeen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ayaa kulankooda waxa ay ku muujiyeen in cabasho ay ka muujinayaan xubnihii loo soo xulay aqalka sare waxa ay tilmaameen odayaashii dhaqanka ee kulanka ka soo qayb galay in xubnaha uu soo xulay maamulka Jubbaland in aqalka sare ay ka mid noqdaan inay yihiin kuwa aan matalin beelaha qaarkood ee gobolada Jubbooyinka dega waxaan u baaqaynaa cadaalad darrada meesha ka jirta in la qabto haddii aan la qaban cawaaqibnimada ka timaada cidda waddan iyo cidda ku taageerta ayaa qaadaysa innagu waxaan dad nabadeed qaayada iyo jeedkeena waxaan gaaraynaa si nabadgelya laakiin haddii dhibaatadu naga badato waxay imaan doontaa in loo tago wax aynan ahayn ama na laga filin inay imaadaan dhulka waan leenahay inta meeshaan fadhido dhammaan dhulkay leeyihiin dhulka ay lahaayeen dadaa ballanqaystay oo maamulka dhistay
kasoo guuray aan ognahay meeshay ka yimaadeen talaga shanaad runta in laga wareego lama rabo runta in la sheego rabo meesha markii la soo staago ma soconaysaa arrinta iyada ma soconayso marna ma socon doonto haddii ilaahay yidhaahdo allah waxaa la yidhi almu'minu lqawiyu khayru min mu'minin daciifi mu'minka daciifka waxaa u khayr badan mu'minka qawiga aad fadli badan dagaalna hadda in la fari maayo laakiin waxaan leenahay axmedow dagaal la gaarsiin macnaha marka waxaan mar labaad leeyahay mar saddexaad leeyahay cadaalad darrada maamulada Soomaalida ka jirto dhan ha la saxo khaas ahaan tanaaba tii adduunka ugu weyneed ee tan ma taqaan nimanka meesha jooga ha saxaano waaba ceb ayay ku soo noqonayso 5 beelood meel ay degan tahay 5 beelood oo hal beel ma taqaan 6 ruux la siiyay intii kalena waxba ma lihidin la yiri war waxaas waa ceb aqlina ma aqoon kuma dhisna xaqiiqdii wax la qaadan karo ama wax laga aamusi karo ama wax loo dul qaadan karo midna ma maxaa yeelay qaabka uu qiimeeyo waa qaab ka baxsan bini'aadanimada Soomaalinimada walaaltinimada ehelnimada intaba ka baxsan waa qaab aan laga fiirsanin oo aan mas'uuliyad ku dhisnayn كين عمر مكران سومالي كيبل مقدشو tababar ku saabsan sidii beelaha dega qaar ka mid ah Soomaaliland ay door muhiim uga qaadan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ayaa waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa sida warka inoogu faahfaahinaya wariyaheena Faisal Fifa tababarkani oo socon doona muddo 2 cisho isla markaana ujeedadiisa guud ahayd mid daaran sidii beelaha gabooye ee ku dhaqan deegaanada Somaliland door muuqda uga qaadan lahaayeen dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarka guud ee bulshada Somaliland soona qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta ururka Taydo oo ah urur maxalli oo inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha ee beelaha gabooye oo kaashanaya hay'adda caalamiga ah oo ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa saaka lagu qabtay hoteelka Xarab waxaana kulankan wadajir uga qayb galay xubnaha isugu jira salaadiin cuqaal duqeyti waxgarad dhalinyaro iyo haween ay weliyaan mas'uuliyiinka kala socday asxaabta siyaasadda komishanka xuquuqul insaanka qaranka iyo mas'uuliyiinta dalada dowladda aan dawliga ahayn ee Sansof waxaana halka ugu horeyn ka hadlay injineer Xuseen Ibrahim Buuni oo ah sarkaal sare oo ka tirsan golaha sare ee dalada dowladda aan dawliga ahayn ee Sansof isla markaana ah qabanqaabiyihii guud ee kulankan galnay iminka maadaama waqtigii campaign-kii iyo doorashadii ay dhowdahay bal inaynu iyagu ay noo sheegaan ama ay nala wadaagaan ajandahooga ku waajahan wuxuu xisbigu ka damacsan yahay ama uu qoondeeyo u qorshaysan ummadan doorashada soo socota marka caadi ahaan waxa laga yaabaa dadka siyaasiyiintu xisbiyaal bay kala galaan laakiin waxa jira saami qaybsi guud oo qaranka u yaalo beel waliba saami ay leedahay marka ka guud un xisbi waliba wixii ajande ugu jira ama qorshe ugu jira inuu siyaasiyan ummadan uga soo qayb galiyo haweenka oo kale dalada nagad waxay ka shaqaysay in xisbi waliba kooto uu xisbiga gudihiisa tusaale ahaan marka la soo tartamayo kale golayaasha wakiilada loo soo tartamayo ama golayaasha deegaanka loo soo tartamayo kale xisbiga waxay ku leeyihiin haweenku 30% iyaga u xidhan oo iyagu dhexdooda ay kaga soo tartamayaan kootadii weyneyd maaha waa within the parties xisbiga gudihiisa marka taasoo kale ayay ujeedada ugu weyn ahayd bal xisbiyadu inay ajandahooga ku darsadaan ummadan waxay uga damceen hay'adii xuquuqul insaanka kale in la joogta markaynu xuquuqul insaanka leenahay arintan access to justice-ka ama inay helaan ummadani cadaalad waynu ogeeyno wiigii iminkayna soo dhaafay kiis ka dhacay wajaale dad maatiya oo guryahoogii ku jira oo iska shaqaysanaya ayay ciidankii xabada la galeen dhankooda waxa iyaguna hadalka isaga daba maray Suldaan Naasir Suldaan Cali iyo sidoo kale Suldaan Axmed Daahir oo labadooduba ka mid ah salaadiinta reer Somaliland xadgudub inay ciidamada nabadgelyadu ay dadka toojar gareeyaan oo iska xirxiraan ama xabad si kibir ah oo bareer ah imika waxa ku dhintay 2 inan oo midna ka soo jeedo dhinaca kale oo wadada marayay midna uu ka mid ahaa inay yaro xirfadlaay beelaha xirfadda inay yaro tumaala oo runtii qoys ballaaran u shaqaynayay oo xirfadle ahaa ayaa goobtii uu ku shaqaysanayay madaxa xabad lagaga dhuftay ma aha wax damiirka iyagu uu qaadan karo mana aha wax damiirka bulshada reer Soomaaliland ay qaadan karaan hadduu qofkaasi qofka taabto uu dambaabay baa lagu oranayaa waa qof bani aadam oo 9 bilood ku dhashay oo Ilaahay abuuray oo sidaada ilaahay kamayna bariin walaalaynu nahay waka rag baa doctor oo haysta rag sharaf la jooga salaadiin baa joogta qiimaynu leenahay bani aadamnimo walaaltinimo iyo islaamnimo kolkaynu ku dhaqmayno taasa qiimo badan inoo sameynaysa
kolkaa waxaan odhan lahaa dhankooda waxaa iyaguna halkaa ka hadlay farxaan faacuul oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani, maxamed barawaani agaasimaha guud ee dala dowladda aan dawliga ahayn ee Sonsof, iyo Liibaan Ismaaciil oo sarkaal ka socday komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee Somaliland. waxaana dhammaantood si isku mid ah hoosta ugu xariiqeen inay doorkan muuqato ay fafaala muujin karta inay qayb lixaad ka qaataan bulshadani dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarka bulshada oo ay horeba qayb uga sii hayeen. kulankan ayaa qayb ka ah. Anita Mungane, this is Ahmed. We work for UNSOM here in Hargeisa. magacayga waxa la rabaa UNSOM waxa la yiraahdaa Anita aniga iyo ninkan garab taagan oo Ahmed Leera waxaan ka soconaa xafiiska qaramada midoobay oo UNSOM watan siyaasadda dalka waxaan awalan mahadinayaa xisbi xakamka kulmiye oo golaha dhexe 10 xubnood ka siiyay community-ga waxaan kaloo mahadinayaa xisbiga wadani oo isaguna sidoo kale haddana aanu eegi doono wuxuu soo saaro laakiin hadda dadka ku jira ee minoritiesku ka jeeda baartiga wadani la yiraahdo ee politicalka ah in ayba cadeeyeenba qorshayaashoodii hawlahoodii oo wada ognahay oo barqad hal yeeshay inuu iska soo sharaxo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani. xisbiga wadani sidii halkan maragu uga dhacay waa ogtihiin oo himilada ugu dheeree madaxtooyo ayuu u diyaar garoobay ninka midabeysan halkan fadhidaayka ee maanta la yiraahdo muxuu taasi waxay ku timi saaxadda xisbiga wadani ee siyaasiga inay furan tahay. marka la eego waxaan ka hadlaynaa waa dhaqan Soomaaliland anigu waxaan filayaa mana kala badna mana kala xoog badna mana kala tiro badna laakiin dhaqan u baynu ka hadlaynaa anu sayla tahay marka dhaqankaasna runtii maaha mid waa wax in badan soo jiray oo aanu baahanahay inaynu runtii aynu dadaal fara badan ka galno. waxaan ognahay dhaqankeenu runtii waxaana bulsho dhaqana marka bulshooyinka caalamka la faaleynayo faa'iidadiisana uu leeyahay khasaarihiisana uu leeyahay. marka waxaan odhan karnaa khasaarihiisa waxaa ka mid ah tanaan maanta ka hadlayno in ummadan oo bulshada ka mid ah la yiraahdo in gaar loo faquuqo runtii waa arrin khasaare weyna. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa. gudoomiye hore ee gobolka Bari Cabdixaafid Cali Yuusuf ayaa Garowe waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax xubin baarlamaan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya sida warka inagu faahfaahinaya wariyaheena Jaamac Dabrani. munaasabad qada sharaf ah oo lagu qabtay hotelka Juba oo haatan dhexdiisa idinka soo hadlayo ayaa gudoomiye hore ee gobolka Bari Cabdixaafid Cali Yuusuf waxa uu halkan kaga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan jagada xubin xildhibaannimo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labada aqalka hoose. Cabdixaafid Cali Yuusuf kulanka uu halkan ku qabtay waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano intooda badan ka soo jeeda gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland waxaana dadkii halkan ka hadlay ay ku dheeraadeen aqoonta iyo wanaaga ay ku yaqaaniin Cabdixaafid Cali Yuusuf. marka waa mas'uuliyad in wasaaran oo adduun iyo aakhirana ka rabo qofka baarlamaanka tagaya codka uu bixinayo isagana aakhir wala weydiinaya kuwii kalena wala weydiinaya marka taas waxaan ka fahmi karnaa marka inaanu ka shaqeyno qof u qalma oo baarlamaanka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed iyo masiirkeedii ka shaqeeya oo Puntland matali kara oo hadda xisbiye iyo meel kale oo waxa laga soo galay beesha matali kara oo beesha xaq ahayd leedahay ama Puntland xaq leedahay ama Soomaaliya xaq leedahay raadin kara. Cabdixaafid waxaan leeyahay soo dhawow amaantaada in badan baa la sheegay waana istaahishaa xildhibaan qaranka Soomaaliya hogaamiye inaad noqotid rag badan oo saaxiibada ah ama ilmadeerta inay kula tartamayaan waxaan leeyahay haddii khayr kugu jiro oo kiisaba bixin lahaa oo jiifta dheer ku habboonaa tan Ilaahay ku fududeeyo ilaahayna inoo wada fududeeyo adduunkeena iyo aakhiradana in Ilaahay wanaajiyo خاطمنا خير كخاتمه. cabdixaafid anigu barashadiisa isku meel baan nahay oo isku reer baan nahay laakiin wax qabadkiisa gobolkan isku baranay gobolkana wuxuu ahaa nin karti leh ilaah yaqaan wax garada dabeecad leh intii dad yahayba ka ah diin leh saas buu ahaa haddana waxaan ka filayaa haddii uu helo بس waxa uu doonayo iyo wax la mid ah
inuu nin dadka raali gelin lahaa wixii la doonayana qaban lahaa baan u arkaa taas halkaasaan ka idhi aga kalena runtii cabdixaafid wax badan buu qabtay tacliinta waa runtiis dhadaar buu ka soo bilaabay ceelasha waa qoday raga kalena kolle iyaguna rag badan oo dhaha iyaguna wax ka weyn baan qaban way noo iman doonaan ergaday u taalla laakiin waxaa fiican inaan idhaahdo hadday shar iyo khayr u tahay ilaahu ka daayo hadday khayr u tahay isagii dadkaba ku toosi taasaa saxab hadal kooban uu halkan ka jeediyey cabdixaafid cali yuusuf gudoomiyihii hore ee gobolka bari oo haatan shaaciyey maanta inuu yahay murashax u taagan xubinnimo baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay oo uu ka sheekeeyay waxyaabaha ku kalifaya in uu issharaxo waxaan marka rajaynayaa oo aan u istaagayna waxay tahay bal inaan istijaabiyo in dadka aan ka dhashay aan ka soo jeedo iyo deegaamadayda bal wixii aan ka soo shaqaynayna horumarnahayd iyo mashaariic ahayd in laygu aamini karo marka mid ka weyn inaan qaban karo anoo marka jecel insha allahu tacaala kolley waxaa dhici karta inta tan hadda meesha fadhida inayan wada codayn laakiin dadka codayn doona ay dad kooban yihiin taasina ay tahay waqtigeeda iyo xilligeeda insha allahu tacaala gaar ahaan waxaan ka codsanayaa marka isimadayda iyo nabadoonadayda inay markaa la yimaadaan ergo loo soo xulay si maxay ahayd ay waafaqsan nidaamka iyo sharciga doorashooyinka iyo xeerka iyo dhaqanka ay inagu leenahay ee waafaqsan oo ay ku midaysan yihiin beelweynta anigu aan ka soo jeedo saa markaan iraahdo waxa weeye waxaan markaa anigu kalsooni ku qabayaa inaan hor istaago markaa dadkaa la soo xulay ee ergada sidaa ku soo yimaado insha allahu tacaala inaan isjaabin doono anoo ku kalsoonaan doona inay siin doonaan intooda badan codkooda hadday siin waayaanna cid allaa cidda ay siiyaan oo ila tartanta inaan ugu hambalyeyn doono kuna la shaqayn doono haddii ilaahay ka dhigo baan rajaynayaa cabdixaafid cali yuusuf waxa uu hore u soo noqday gudoomiyihii gobolka bari oo uu muddo halkaasi ka soo talinayay sidoo kale waxa cabdixaafid cali yuusuf uu madax ka soo noqday hay'ado kala duwan oo arrimaha gargaarka iyo bini'aadantinimada ay ku jiraan iyo waliba xarumo waxbarasho oo madax ka soo noqday waa jaamac dibaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV hotelka Juba Garowe kulan lagu taageerayay aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London dhammaan taageerayaasha xisbiga UCID bani wada salaamisada quruxda badan oo soo qayb gasheen madashan caaw waxaanu sugnimay inaanu saddex arrimood ku wada hadalno arrinta ugu horeysa oo la muujiyo taageerada musharaxa xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen iyo arrinta labaad oo xubintii iska casishay xisbiga inaanu ka aqbalno oo aynu u mahad celino sidii quruxda badan ee nala shaqeeyeen iyo arrinta saddexaad oo ah in warbixin laynaga siiyo arrintii xisbigu xaggay marayso saad ka warhaysaan xisbigu maxkamaddu ka soo baxay iyo maxay tolo shirweyne soo socda iyo arrimaha ragga xoogagaalka oo ah inay arrimaha insha Allah inala socodsiiyaan oo warbixin naga siiyaan maxkamaddu waxay noo sheegtay inaan haddii la waayo liiskii hore in si islaam loo qabsanayo arrinkaas waxaana jaaniskaa siinaya in guddida qodobkeedii hore ee 50-50-ga ay soo celiso macnaheed mar haddii la waayay rikoorkii ahaa shirweynaha ciddii fulisay ee dooratay waqtigaasi mar haddaan rikoorkeeda la haynin waxaa loo noqonayaa heshiiskii qodobkii ay soo saartay guddiga doorashooyinka ee ahayd inay 50-50 ay ka yimaadaan labada dhinac markaa waxaan leeyahay dee fifa ucid way noo sheeg ilaahay u guuleeyo ucid ilaahay qalinkaa u hiiliyo ninkaa iyo dhalinyaradu hogaaminaya la horjooga ilaahay u hiiliyo inaynu maanta aynu xududeena aynu muujino inaynu tusno ucdina weli noo sahay garabkii jamaal weliba gobta way xisbiyada Soomaaliland midna meeyi saaxatay waxaan taageersanahay ninka dhalinyarta ee Jamaal Cali Xuseen lagu soo baxo xisbiga waxaan filayaa qofka horreeyay ee kale inaan kama filaya intii laga farqaynaya ugu horreeyay ma filaya markaa Jamaal wuu joogay in calawraawa waxaan ku galay maalintii uu ciidan ka soo ceshay dibadda ee ku soo celiyay Hargeysa ee dabaysii ka soo dhacaysay madaxda ku dhacaysay idaacadda uu soo ceshay baan anigoo noqonin aan galo carruurtayda oo hooyadood ka maqantayna saddex bilood baan uga shaqaynayay hawl uga shaqaynayay wallaahi inaan weydiin shil maxaan ku shil daa little bit basira والله جاب يد استعمالي
اوكي حسن انت انا كل شيء ما احترام ما كان odayga abtigaya imroha ina على ورقه فريم موديل فريم موديل يا abtigaya هل عنده حبيب مين بالله marka ugu horeysa waxa leeyahay saddex xusbi ee xusbi qaranimada waliba ixtiraamkiisu leeyahay wa xusbi qaran weey ugu ugu weeyahay marka waxa weeyaan in jamaal uu ina yar yahay oo dadka soo kacay uu maaragtay yahay mustaqbalkeedu waa la og yahay laakiin dadka loo sheegaya waa kee Soomaaliland ma ku nool ma jiro waxa jirta qabyaalad waxa jirta nin walba wixii isagu uu dantiisa moodiyay inuu danta caamka ah ee Soomaaliland inuu ka hormarinayo taasna kuma gaadhin Soomaaliland haddaan nahay horumar iyo himilada aan higsanayno kuma gaadhayno waxayna dhigaysaa inaynu nidhaahno markaynu kursiga ninka ku fadhiisino oo maanaga sidanba moodayay Jamaal Ali Xuseen shirkii ugu dambeeyay ama dhawaaqii ugu dambeeyay ka soo baxay ku dooran doono ama uu diyaariyay beeraha bariga inuu ka dhigo madaxweyne ku-xigeen ayaa ku taageeraya waxaan kaloo halka ka salaamayaa mas-uuliyiinta garabkeenna oo ugu horeeyo musharaxa madaxweyne Jamaal Ali Xuseen oo uu ku xigo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga Wacyi Cali Gurey oo uu ku xigo xogayaha guud ee golaha dhexe Sabca oo uu ku xigo Maxamed Baaruud oo uu ku xigo Maxamed Haarun sorry oo uu ku xigo waxa weeye xogayaha muxuu ahaa xuquuq insaanka Xuseen Badmaax oo uu ku xigo Suldaan Aadan Gacayte iyo Dawlad Axmed Yaasiin oo ah waxa weeye gudoomiyihii gobolka Saaxil intaaba waxa weeye waxaan u dilayaa inuu salaan aan ka siino taageerayaasha Jamaal Ali Xuseen ee dalka UK inta kadib xafladda haddaan idiin sheego waxa aynu macaawa isugu nimi iyo dulucda xafladdani waxa weeye inaynu ku taageerno Jamaal Ali Xuseen waxaan dareemay dadka Soomaaliland jooga ay u badan yihiin dhalinyaro markii aan dhowr jeer aan la hadlay dhalinyaradaas waxay ii sheegeen markaan idhi saddexdaad musharax keebeed u maleynaysaan inuu isbeddel ku samayn karo noloshiina iyo aayihiina dambe waxay oo dhammaantood ii sheegeen inuu Jamaal yahay waxaan leeyahay dhalinyarada ku dhiirada maksibay magacooda wadada gudoomiye arabay gudoomiye markay waxaan sheegay xisbiga gudoomiye inaan wali ku kulay waa soo haray noqonay oo ka noqonay guush helaysi ka noqonay weey ninka ilaahay oo wata Soomaaliland oo wata ilaahay wata ilaahay oo wata cid ku celin karta ma jirto waxa la ilaahay ku celin maanta dadka dadkiina jooga la jooga ee bulshada jooga ma jooga afree in xisbiga taageeraan وتاجر حولي ونقولي ونحسن وهاي وعون هاي الموجيا أنا كان مدورتين أنا لا شقيسان وسوى سلا لا شقيسان maamulka Amal Bank ayaa shirkad isgaarsiineed oo lagu magacaabo Amtel taasi oo ka mid noqon doonta shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeynaya gudaha dalka Soomaaliya ku dhawaaqay sidoo markale warkan inoogu faahfaahinayo wariyahana Jaamac Dabrani maamulka shirkadda Amal Group ayaa waxay soo kordhiyeen shirkad isgaarsiin oo cusub oo lagu magacaabo Amal Telecom oo magaceeda loo soo gaabiyay Amaltel munaasabad xaleeto lagu qabtay hotelka New Race Garowe ayaa lagu daahfuray waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka Amal Bank ayaa halkaas ka hadlay Saciid Cali Shire waxaana uu ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay shirkadda isgaarsiineed ee ay soo kordhiyeen Amal Group sidoo kale madaxda shirkadda isgaarsiinta ee Amaltel ayaa hadlay iyadoo sidoo kalena ganacsato iyo dad kale oo caan ka ah guud ahaanba gobolka ay halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyeen inta markaan soo dhaafno Amal markay xawaaladii samaysay oo real estate-kii samaysay Amal waxay bilowday banki bay bilowday bankigaas oo lagu magacaabo Amal Bank headquarterkiisu waa ka war haysaano waxa weeye waa Garowe Puntland State meel walba iyo gobol walba oo Soomaaliya waa ku yaala maanta halkan kaliya maaha halka waa headquarterkii laakiin magaalo kasta iyo degmo kasta oo Soomaaliya kamid ah
uusan ku oolayn labaa ka maartay shirkadda tan amal ee xawaalada waxay leedahay 250 xafiis ayay ku leedahay Soomaaliya gudaheeda 250 ka xafiis waxay ka shaqeynayaan oo u adeegi doonaan iyagoo xawaalada ka shaqeynaya bangiga ka shaqeynaya ayay haddana waxay u shaqeyn doonaan shirkadda amteelna shaqadeeda qabanaya halkaas horta waa fursad 250 shirkad haysata 250 xafiis haysata fursadaheeda waxaa ka mid ah 270,000 oo customer bay bil walba waxay siisaa lacag siisaa 250,000 oo qof hadday qaataan qof walba sim kaarka qaato oo bishii isku celcelis uu ku hadla $6 baa la yidhahdaa qofka dadka marka la isku soo celceliyay bay ku hadlaan waxay noqonaysaa 250,000 oo qof markay qaataan oo 6 lagu dhufto waa 1 milyan iyo xoogay bisha dambe haddii la hidmo waxaan loo jigarayn doonaa app qofka ku download garaysanaya mobilkiisa oo kala soconaya xisaabtiisa halkaas hadafkeenu waxa weeye adeeg kasta oo qofku ku qabsan karo bangi uga baahan inuu farac u tago inuu ka heli karayo isagoo isticmaalaya telefoonkiisa si loo gaaro marka istaraatiijiyada soo xaqiiqowdana waxaa lama huraana in la helo company telecom amtel marka wuxuu ku dulisan yahay oo qaybkaya istaraatiijiyadaas waxaan rajaynaynaa haddii la hidmo inuu noqon doono hormuudka isticmaalka tiknoolajiyada inuu noqon doono waayo objectiveka loo sameeyey baa waxaa ka mid ah siduu sheegay ustaad yacquub inuu sii horumariyo businessidii jiray ee horey ku jirtay amtel waa idinka mahadnaqaynaa munaasabadan iyo fursaddan qiimaha badan waana jawaab hor leh oo bixinaysa tilmaan iyo astaan waddankeenna inay yaallaan furas aan laga helaynin qurbaha iyo meel kaloo kastoo la aado waxaan leenahay guul baan idin rajaynaynaa kuwa hore soo guuraystaanna waa insha allahu tacaala ka rajo qabnaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan filayaa muddo dheer baa tartanka lagu soo jirayoo waa lala qabsaday hadda marka yaa loo arag inaan nagu hoogaa leenahay waa ku sabir suuqa lina soo galay waxaan idiin sheegayaa haddii aan tartan jirin shirkaduhu ma horumarin oo shirkad walba waxay joogi lahayd meesha ay ku galowday marka waa soofeynoo shirkaduhu waxay ku horumaraan oo ay adeegooda kusii hagaajiyaan marka tartan jiro waxaadna ku soo dhawaataan hawl laydiin qabtay adeega mobile money transferka waxaana dadka annaga idin baray dadku hadda si fiican bay yaqaanaan amal telecom oo loo soo gaabiyey amaltel waa isgaarsiin ka mid noqonaysa isgaarsiinaha kala duwan ee ka howlgeli doona Soomaaliya waxaana ay qayb ka tahay adeegyada cusub ay soo kordhisay shirkadda Amal Group Jaamac Debarani Somali Cable TV Garowe xuseen guuleed afgaab ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Minneapolis sidoo kale tan xuseen waxa uu ka mid yahay xubnaha u taagan doorashada golaha wakiilada ee Somaliland sidoo warka inoogu faahfaahinayo markale wariyahana awil nuur shire munaasabad isugu jirtay casho sharaf iyo soo dhaweyn ayaa loo sameeyay musharax xuseen guuleed afgaab oo isagu u tartamaya kuraasta golaha aqalka wakiilada ee Somaliland munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda Somaliland iyo Soomaalida ku nool gobolka Minnesota munaasabadii ayaa sidan ku bilaabatay xuseen faani maaye hadduu faraska heenseeyo hadduu familygii iyo u tago faranti reer togdheer ragga faranta yuuro hadduu ficilka gaarsiiyo laandheero fiiqoo baxo foosay buu noqon xuseen waxa weeyaan waa xildhibaan ka sharaxan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka togdheer dhawaan waxa uu tagay dalkii runtii aad iyo aad waa xildhibaanka kaliya ee la isku raacsan yahay ee aan cidi isla sharaxin marka loo eego xildhibaanada hadda musharaxiinta ee la isku wada haysto runtii waxaan u noqday afhayeenka musharaxiinta soo socda ama xildhibaanada soo socda ayaa Hargeysa loogu doortayoo taasina waa xil dheeraad oo isaga dul saaran haddaan iskiin baro ninkan waxa la yiraahdaa xuseen guuleed jaamac oo ku magac dheer afgaab waa ragga aan isleeyahay mustaqbalka iyo waddanka waxa ka bedelaan inkastoo aanan uba malaynaynin
ragga miminka golaha guurtida fadhiya inaanay meel laba uga socon 20 sano ugu dambeeyayba ay meesha iska fadhiyaan haddana waxaan isleenahay bal ragga meesha ka kicin doona insha Allah inuu noqdo oo wax u qaban doona xildhibaanka anoo hadalkeeda ku sii badanayn wani siyaasi ah daayar cilmi leh waxbarashadiisa iminka ay gabagaba tahay insha Allah hadii ilaahay ka dhigo oo wadankii wax ka qaban doona marka aan waxaan leeyahay heel iyo hoob aan kula garab taaganahay isagoo kaliyana ma aha ama wadankii ha ka yimaado ama halkan ha joogo qof kasto aan isleenahay wadankii horumar iyo waxba uu sameeynaya waan soo dhaweynaynaa inagu inta kaliya aan ku tari karnaana waxa weeye qofkii wax wanaaga wada inaynu garab istaagno waxaan leeyahay xuseen horta wadankeeni category dadka laguma doorto laakiin waxaan ku rajaynayaa inay dadkaad ku dooran doona eed matali doonta gartaan inaad tahay qofka ugu habboon ee geyn karaan kursiga oo ay kugu taageeri doonaan waxaan u soo jeedinayaa taageerayaashiisa haddii xuseen uu yahay qualified inuu buuxiyo positionka oo uuna yahay aqoon-yahan yahay inaad ku taageertaan haddaad joogtaan gudaha iyo haddaad joogtaan dabadaba waxaa jira madaxweynaha Uganda madaxweynaha Zambia madaxweynaha Suudaan oo hurdaad arkaysaa meelaha shirarka Obama cararayaad arkaysaa waxay ku tusaysaa dhalinyaradu kartida ay leeyihiin fearlesska ay yihiin oo ma baqayaano vision-kooda way muujiyaan inta badan waxaan rajaynayaa odayaashu inayna u qaadanin la riixayo laakiin waxa loo baahan yahay runtii rag dhalinyaro bad aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dadka quruxda badan ee xafladan ka soo qayb galay aadna waxaan aad iyo aad u salaamayaa wiilka Xuseen Jaamac oo ka sharaxan xisbiga kulmiye walaal waxaan ku leeyahay dhabarkan ka taabanay haddaan reer Minnesota nahay insha Allah intaa kadib waxaa hadalkii la wareegay musharax Xuseen Guuled Afgaab oo isaguna si qoto dheer uga hadlay sababta xilligan ku soo aadisay inuu tartamo kuraasta aqalka wakiilada ee Soomaaliland waxaana hadaladiisa kamid ahaa sidan waxaa jirtay in arintii doorashada khilaaf yar ama muran siyaasadeed uu ka yimi gaar ahaan dhinacii beesha caalamka iyo wadamadii doorashada inaga taageeri jiray iyagoo diidaya ama ka soo horjeeda muddo kordhimaha soo noqnoqday gaar ahaan ta golaha wakiilada laakiin buuq kasta oo yimaada iyo khilaaf kasta oo yimaada inagu waxaynu mar walba la dhinacnahay mar walba mar kasta oo dabaylaha siyaasaddu fool xumaadaan waxaanu inagu la dhinacnahay xukuumaddeena hoggaankeena iyo hadba madaxweynaha jooga sababtoo ah mas'uuliyadda iyo wadaniyadda ayaa ina faraysa inagu noqon mayno maamul goboleed ama gobol doorashooyinka loo qabto oo lagu qasbo waxaanu nahay qaran weyn oo dhisan oo gaadiiday doorashadana waa laynaga taageeraa laynooma qabto isku soo wada duubo dadkii goobta isugu yimi ayaa la dhacay sida ay munaasabadu u dhacday sidoo kalena musharax Xuseen Guuled Afgaab ayaa u mahadceliyay jaaliyadii ka soo qaybisay kulankan iskuna soo dubariday awil nuur shire Somali Cable TV Minneapolis 25 wariyaal oo kamid ah wariyaasha ka howlgala qaar kamid ah deegaanada Puntland ayaa waxa garowe loogu soo xiray tababarkaasi oo looga xog waramayay sidii ay wariyaasha uga shaqeyn lahaayeen habka doorashooyinka loo soo gudbiyo nabadana looga shaqeeyo sidoo warka inagu faahfaahinaya wariyahana Jaamac Dabrani aqoon-iswadaarsiga loo qabtay qaybo ka tirsan wariyaasha ka howlgala gobolada Puntland waxa la isugu keenay wariyaal gaaraya 25 wariyo oo rag iyo dumar isugu jira kuwaasi oo ka kala yimi gobolada Mudug, Sool, Cayn iyo sidoo kale gobolka Nugaal oo garowe maanta aqoon-iswadaarsigu ka furmay inta uu socdo waxa la baran doonaa bidqabka wariyaha iyo tabinta iyo qaabka loo soo tabinayo doorashooyinka dadban ee dalka uu galayo waxa si wada jira barnaamijkan u hirgelinaya hay'adaha AMS iyo Fojo oo kaashanaya ururka warbaahinta Puntland ee MAP hadalla kala duwan oo halkan laga sheegay waxa si gaar ah loogu taabtay muhiimadda ay leedahay in wariyaha la baro bidqabkiisa iyo qaabka uu dhaqmayo isaga iyo warka marka uu tabinayo si lamida sidaasi waxa la xuseynay muhiim tahay in xilligan loo baahnaa in wariyaasha la baro qaabka loo tabinayo doorashooyinka waliba doorashooyinka oo dhan maahay kuwa dadban oo Soomaaliya ay galayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Nuur Ahmed Yuusuf oo ah sidoo kale si haya xilka wasiirka iyo waliba xubno ka tirsan qabanqaabiyaashii munaasabadan oo ka mid yahay
abukal albadri oo ah xiriiriyaha barnaamijkan ee IMS u qaabilsan Soomaaliya iyo waliba Faysal Khaliif Barre oo madax u ah ururka MAP ayaa si wada jira halkan uga hadlay mudanayaal iyo marweyn tababarkani waxa uu muhiim u yahay shaqooyinkiina joogtada ah ee maalinlaha ah iyo waliba waqtigan aynu ku jirnay ee kala guurka ah oo la doonayo inaynu si ballaaran ugu baraarugno qaabka aynu u tabin lahayn arrimaha doorashooyinka oo waqtigan macni xaadirka magaalada Garowe iyo magaalooyinka loo lamida ka dhici doona Soomaaliya ta kaleeto tababarkan waxaad ku baran doontaan tababar aydan hore intiina badan u qaadan oo ku saabsan badqabka iyo feejignaanta sidaan horeba u sheegay shirkan inta uu socdo wuxuu isugu jiri doonaa tababaro aqoon ah iyo kuwa kale oo si practice ah loo qaban doono oo dhammaantood macnihii tilmaamaya sida ugu habboon warfidiyeenku uu magaranaysaayay taxadar u muujin lahaa xilli kasta oo uu shaqadiisa ku jiro hay-adaha IMS iyo FOIO waxay iska kaashanayaan mashruuc la yiraahdo Somali Media Development Program oo loogu talagalay horumarinta warbaahinta Soomaaliyeed barnaamijkaas oo sanadka koowaad 5 sanadood ay u socon doona sanad koowaad wuxuu aad diiradda u saari doonaa safety-ga ama badqabka iyo feejignaanta wariyaasha iyo wax la yiraahdo advocacy oo ay qayb ka tahay tibinta doorashooyinka barnaamijkan wuxuu arkaa muhiimad weyn in Puntland ay qayb weyn ku yeelato si socodkiisa sanadka koowaad labaad saddexaad afraad ilaa shanaad waxaan partner la nahay ama bahwadaagnahay MAP oo kamid ah ururada ka jira Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo ururo kale oo koonfurta ka jira bahwadaagnimadaas ayaa keentay markii in hoolaha ugu badan inkastoo NGO-da inta badan hoolaha inta la yimaadaan ay qaban jireen annagu inaan ka duwanaano oo wixii loo qabanayo wariyaasha la soo marsiiyo hay-adda iyaga matalaysay baahidooda iyo duruufahooda iyada anaga og marka taasaa keentay in maanta MAP oo aan howlwadaag ama bahwadaagnahay ay noqoto hay-adda barnaamijkan aan isla fulinayno waxaan inay rajaynaynaa in laba mowduuc oo muhiim ah ay workshop uu ku saabsan yahay mid waxa weeye badqabka ninka wariyaha ah ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay inuu nabadgeliyo idinkuna de waxbaad ka baranaysa qofku sida uu naftiisa u bambaaniyo ayaad ka fahmaysaan ilaahay baana badbaadada iskale kan kale waxa weeye qodobka kale tebinta doorashooyinka dadban ee sanadkan 2016 ka dhacaya Soomaaliya laguna qaban doono maamul goboleedyada xarumahooda dadka marka si wax loo gaarsiiyo ay ula socdaan wacyiga jira habka doorashadu u socoto idinka ayaa ah kuwa loo tababarayo dadka inay gaarsiiyaan idinka waxa leeni ka baahay marka si feejignaana dhexdhexaadnimo muwaadinimo kulli inay u gaarsiisaan muhiimadda ay leedahay bidqabka wariyaha in la baro waa mid si gaar ah ugu muhiimsan wariye kasta oo ka howlgala meel ay colaado ka jiraan ama xaaladiisu ay deganeen sida Soomaaliya oo kale si lamida sidaasina waxay muhiimad gaar ah u leedahay in doorashooyinka qaabka loo baro la tabiyo wariyaasha muhiimad gaar ah maadaama toddobaadkan gudihiisa ay bilowdeen doorashooyinka aqalka sare oo ay ka dambeyn doonaan doorashooyinka aqalka hoose waa Jaamac Dabaraan oo ka soo hadlaya Somali Cable Garowe kulan lagu soo dhaweynayay Cabdiwaaxid Maxamuud Xasan oo ka tirsan saraakiisha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa lagu qabtay magaalada Minneapolis sidoo warka inoogu faahfaahinayo wariyaheena Awil Nuur Shire Colonel Cabdiwaaxid Maxamuud Xasan ayaa soo gaaray dalka Mareykanka halkaas oo yimi safar shaqo haddaba waxa uu isla mar ahaanta booqasho ku yimi magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ay ku badan yihiin jaaliyada Soomaalida ee qurbaha ku nool munaasabad lagu soo dhaweynayo ayaa lagu qabtay hoolka safari oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis waxaana ka soo qayb galay qaar ka tirsan jaaliyada Soomaalida gaar ahaan kuwa Puntland waxa ayna ku bilaabatay sida tan waxa weeye Cabdiwaaxid haddaan wax yar ka taabto isagoo dhalinyaro ah buu muxuu ahaa dee howlahan galay ciidamada iyo hawshaas intii ka dambeysana wixii uu maslaxada iyo wixii khayra iyo wixii muxuu ahaa dalka iyo dadka wadanu abuu ka shaqeynayay muxuu ahaa Kismaayo ku dhashay ninkani Cabdiwaaxid halkaasaa reerkii iyo dadkiina jiraan hadda qudheeda intii dambe uu xagga joogay Puntland iyo halkan ilaa federaalka uu muddo ka soo shaqeeyay waxa ka muuqda inaad dalkaaga u dhaawacantay
astaantii baa kaa muuqata oo cid walba arkaysaa haddaan dalka la helin dad waqti geliya dad u dhinta iyo kuwa u dhaawacma haddaan la helin iyo kuwa hanti geliya dalka dowladnimadiisu ma dhismayso darajada aad wadato ninku haddii uu gaadho waa dowlad nin hogaamin karaa ma u diyaara aad baan waxaanu ugu faraxsannahay caawa adigoo 13 jir ku bilaabay jiritaanka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed naftaada iyo dhiigaaga u huray dhaawacyadiina ay ka muuqdaan caawa annagana nooga baahan yihiin hiilo iyo duco iyo karaamo hiliyahooba inaanu kaas dhinac taagno oo cabdiyow safarka haga socda halkaaga qaaliga salaanka calto hooyo ubax baanu ku sidnaa ee dadaalkiiyo hawshii halgaankaagii dooraha deegaanka bari iyo ilaa daafihii galbeed deegaanka bari iyo ilaa daafihii galbeed deegaanka ciid mudug ayaa ku dabaaldegeen ee Puntland doorkeediyo caawanala dakee Cabdiwaaxid korneelku waa ninka haddana lii sheegay 13 jir ku bilaabay inuu ciidan noqdo kana soo shaqeeyay gobolada Jubbooyinka una taagnaa markuu dhaawacmay lugtiisa rag isbitaalka kamid ahaa ku hayana kamid ahaa Cabdiwaaxid qisooyinkiisa haddaan iga sheekay wuxuu ahaa raggii nabadeynta ka qayb qaatay arinta Jowhar oo la socday madaxweynihii kumeel gaarka Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu kamid ahaa raggii markii dambe u wareegay Baydhabo ka soo shaqeeyay magaalada Muqdisho labadii madaxweyne iskaga dambeeyay madaxweyne Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud hadda jooga anigu runtii waan aqaanaa laftiga Cabdiwaaxid waa nin dhalinyaro oo aad u firfircoon runtii ummadda Soomaaliyeedna ay isku wada mid tahay meel kasta joogo yaqaanana mas'uuliyadiisa runtii militarinimadiisu maaha taa aan markii hore ka dhawaajiyay ah in dadka lagu laayo laakiin waa mid runtii lagu badbaadiyo dadka horumarkan runtii lagaga shaqeeyo aad baan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawow wadanka ku soo dhawow Mareykanka Cabdiwaaxid wuxuu ku jiraa ragga ugu quality-ga sareeya ragga lagu xisaabtamo Cabdiweligaas lama bilaabin Faroole lama bilaabin Cadda lama bilaabin ilaa iyo Cabdullaahi intaan ani garaadkayga ama taariikhdiisa aan madaxtooyada markaan joogay waxa weeyaan ninkaasi waa soo shaqeynay markii hawli dhacdo oo madaxweynuhu uu saraakiisha intelligence-kiisa uu damco inuu la shiro qofka ugu horeeyo oo imaanayo weeye Cabdiwaaxid waxaan aad iyo aad hambalyo ugu soo jeedinayaa ciidanka sharafta iyo karaamada leh oo Ilaahay siiyay guud ahaan Soomaali ama Muqdisho ha joogo ama Baraawo ha joogo ama Baydhabo ama Kismaayo ama Marka ama Gaalkacyo ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan Soomaaliyeed kulligood sharaf bay leeyihiin sida ay isugu xiran tihiin midnimada jaaliyadaha ay kala tihiin jaaliyadu dadku waa kala noqon karaan Puntland Galmudug Somaliland kulli koonfur galbeed laakiin midnimadiina muhiima ina isku xiran tihiin kooxba markay xaflad qabta ay isu tagtaan afkaarta ay isweydaarsataan ma aqaan anigu dadkiina dibadda jooga cilmiga sidoo idiin galay marmar baan waxaan israadaa iyaga bay idinka jaahilsan kuwa dibadda jooga haddii idinka aad shaqaynaysaan oo sida haddeer waddamada horumaray oo aad joogtaan tusaalaha aad annaga intaa soo koobi garaystaan noo soo baas garayn lahaydeen waaba ku shaqayn lahaynba qofkii qof keliya toosiya intiina joogta haddeer qurbaha Soomaaliya oo dhan baa toosi lahayd waxaanu leenahay waa dadaalaysaane dadaalka laba jibaala oo isku xirnaada midnama lagama maarmo isku soo wada duubo Korneel Cabdiwaaxid Maxamuud Xasan ayaa isagu ka soo shaqeeyay caasimadda dalka Soomaaliya xilligii dawladii ku meel gaarka ahayd oo hogaaminayay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Awil Nuur Shire Somali Cable TV Minneapolis ururka warbaahineed ee Puntland ee MAP ayaa waxa ay wariyaasha ugu baaqeen inay xaaladda mudug ugu waramaan doorka nabadeed iyo waliba wax dhisida
sidoo warka inoogu hayo jaamac dabraani oo inta badan Garowe inooga soo warama. ururka saxafiyiinta ee Puntland ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay halkan oo isagoo ay weheliyaan waliba wariyaal kala duwan oo Garowe u jooga aqoon isweydaarsi la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo bidqabta wariyanimada ayaa waxa shir jaraa'id halkan maab ku qabatay ay fariin ugu dirtay guud ahaanba wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha Puntland ee ka howlgala Puntland si gaar ah gobolka Mudug waxa ay maab ka hadashay doorka loo baahan yahay in wariyaashu ay ka qaataan xaaladda amni ee ka jirta gobolka Mudug sida loo baahan yahay in dhexdhexaad u noqdaan sida loo baahan yahay inay soo tabiyaan wararka dhiiri gelinaya nabadda horumarka iyo isu soo dhaweynta labada dhinac markii uu kulanku soo dhamaaday oo ay wariyaasha la hadleen map oo ay weheliyaan wariyaasha inta badan ka howlgala gobolada Puntland oo halkan aqoon isweydaarsi u jooga ayaan la kulmay Faysal Khalif Barre oo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee map muhiimadda fariinta maanta dirteen ee la xiriirta amniga gaalkacyo iyo aad u soo jeediseen wariyaasha maxaa ku soo koobi kartaa waxaan ku soo koobi karaa marka koowaad waa waajib guud oo saaran warbaahintu in ay dhiiri geliso amniga iyo nabadqabka bulshadeena maanta magaalada gaalkacyo dadka ku nool wadad walaal ah wax xumaanto oo ka dhaxaysa iyaga gaar ma jiro siyaasad dawladnimo ka dhaxaysa laakiin sidee bay kula noqonaysaa jaamaco dareenkaagu sidee buu noqonayaa marka lagu yiraahdo 70 kun oo qof ayaa abaartan maanta la taagan yahay barakaaday waxay u barakacdeen ay tahay wax misqaala darrati ah oo maamuladu ay ku dhameyn karayeen wada hadal ku dhameyn karayeen marka taas ayay muhiim u tahay waxyaabaha kale aan dareemayna waxa kamid ah workshop-kan hadda halkan nooga socda waxa ka soo qayb gali lahaa wariyaal ka socda Galmudug nasiib darra dagaalka dhacay dartood way ka soo qayb gali kari waayeen inta ugu yar ee aan tilmaami karno waa intaas maxaad u malaynaysaa waxa kale baaxad la dhacay marka muhiimaddu uu noo leeyahay waxa weeye waa in door shariif oo kaalin muhiim ah oo nabadgelyo ay ka qaataan warbaahintu arrimahan dhacaya laakiin warbaahintii maanta waxay ku mashquulsantay inay tiraahdo qolada maxaa tirahdeen 5 baan dilnay 4 baan dilnay waa riixna waa magaciisiinay laakiin in dadkan la ceebeeyo waxa ay sameynayaan oo warbaahintu ay soo saarto dhibaatada rasmiga ah ee meesha ka dhacday la muujiyo oo ma garanaysaa mas'uuliyad darrada meesha ka dhacday la muujiyo waa muhiim ah mas'uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland waxaan u jeedinaynaa inay aysan ilaashan mansabiyadooda iyo kursigooda ay u naxaan dadka ay mas'uulka ka yihiin brito waa la weydiinayaa aakhiro waa la weydiinayaa taariikhda qori doonta la yiri hase ahaatee waxaan ku darayaa maadaama aan anigu dumar ahay dumarku waa waxa u badan ee kiciya dhibaatada bulshada maanta ka jirta gabar kasta oo ka qayb qaadanaysa waxaan ha ka fikirto kan dhimanaya waa walaalka waa wiilkaagii waa in adeerka marka hay isku dayaan dumarku iyagu inay xakameeyaan waxay sameynayaan haddaan dumar ahay shukran tan iyo markii gobolka Mudug xaaladda amni ay soo xumaatay wariyaashu waxay tabinayeen wariyaalka warar kala duwan oo la xiriira labada dhinac laakiin mar walba waxa muuqanaysay dadka barakacaya inay ku barakacayeen waxay ka maqleen warbaahinta khataraha iyo hubka la isoo adeegsanayo taas waxay muujinaysaa maab inay ciyaartay door muhiim ah haatan oo la xiriira in wariyaasha lagu baraarujiyo inay wax u sheegaan si waxay isu keenaysaa dadkana aan barakicinayn jaamac dabraani Somali Cable TV Garowe Sheekh Mukhtaar Sheekh Cismaan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan London ayaa baaq nabadeed waxa uu diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya gobolka Mudug xilli uu la hadlayay TV-ga Somali Cable Bismillah alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in anigoo ah walaalkeen Mukhtaar Sheekh Cismaan kana mid ah walaalaha ku nool dalkan Ingiriiska ama mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada London waxaan codkayga ku darayaa oo ku boorinayaa ehelkii iyo culimadii iyo akhyaartii ka hadashay dhibtan soo noqnoqotay ee ka jirta magaaladan Gaalkacyo anigoo diraya baaq nabadeed arintan foosha xun ee dhacaysay maalmihii la soo dhaafay ee xalay ugu dambeysay ma aha arin loo baahan yahay ma aha arin waqtigeedii la joogo waa arin u baahan in la joojiyo marka waxaan baaq nabadeed oo ilaahay dartii aan u dirayaa dhammaan labada garab ee isku haysta magaaladan ee burburka joogtada ah iyo dilka joogtada ah iyo qaraxa joogtada ah iyo qaxa joogtada ah sababaya maalin walba oo laga soo kabsan laayahay walaalayaal sida aad ogtihiin qabyaalada nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam jaahiliye marna wuxuu ku tilmaamay mid uraysa dacuha fa innaha muntina bi nabigu sallallahu alayhi wasallam qabyaalada ka fogaada waa shay uraya oo liitabiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam xamiyatul jaahiliya buu quraankuna ku tilmaamay inay tahay arin dib u dhac iyo jahli salka ku haysa
intii hadda ilaa Soomaaliya waqtiga dagaalku uu ka dhacay qabaliga ah Soomaaliya guud ahaan waxa naga lumay waad ogtihiin waxa naga burburay waad ogtihiin jabka iyo magac xumada iyo qaxa iyo qaxootiga iyo karaamo darada naga soo gaartay oo dhamaanay waad aragtaan oo ubadkeena iyo ilmaheena maalwalba mid Canada iyo Ingiriis iyo Mareykan lagu dilo iyo lagu xiro oo noqonayo mid baddu ku cunto ma garanaysa inta u dhaxaysa Afrika iyo Yurub walaalayaal Ilaahay ka yaaba dhismaha dalka iyo horumarintiisa ka fiican burburintiisa iyo islayntiisa Ilaahay ka yaaba qaxa waxa ka fiican iyadoo ma arkaysaa nabad iyo wanaag la helo Ilaahay ka yaabo 70 jirada la qaxinayo maalin walba waxa ka fiican iyadoo la dago oo xabada la iska daayo oo qoriga la gadayo lagu bedelo ma garanaysaa qalin iyo waxbarasho ugu dambeynna waxaan baaq u dirayaa dadka dibadaha jooga ka qayb qaata inaad dalkan xabada ka joojisaan ka qayb qaata wanaag iyo horumarka iyo dhisida dalka iyo soo celintiisa yaan lagu gacan siinin burburintiisa wajazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullah gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu kulan la qaatay wariyaasha ka howlgala magaalada Burco sidoo warka inoogu soo diray wariyaheena Naasir Kayd gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo ayaa maanta kulan la qaatay saxaafadda dawliga ah iyo kuwa madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Burco kulankan oo ka qabsoomay xafiiska Barsaabka ayaa laga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta laamaha dawladda iyo bahda warbaahinta kulankan oo ay ku heliyeen gudoomiyaha qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada iyo madaxda degmada ayaa ku soo dhamaaday in si wada jir ah loo ilaaliyo xeerka saxaafadda madaxa bannaan iyo hanaanka dimuqraadiyadda bulsho kastana xaq u leedahay in lagu xadgudbin shaqadeeda iyadoo labada dhinacba ku qanceen heshiiskii la isla qaatay oo ahaa in saxaafaddu hawlaheeda u wadan karto si xorriyada wixii isfaham la'aan ay yimaadaan lagu xaliyo si wanaagsan waxa halkan ka dhacay xafiiska Barsaabka gobolka Togdheer oo ay weheliyaan maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka kala duwan madaxdii ama guddigii nabadgelyada ee gobolka oo dhan waxa kulan la qaateen warbaahinta gobolka Togdheer kulankaas wuxuu daaranaa sidii ay wada shaqayn u yeelan lahaayeen warbaahinta gobolka iyo maamulka gobolka iyo degmadu wada shaqaynta ka sokow waxa runtii iyada laftarkeedu xusid mudan in su'aal taagneyd oo ah in aan warbaahinta gobolka Togdheer la garanaynin nambarka rasmiga ah ay tahay iyo waliba warbaahintu inta ay ka kooban tahay ee gobolka ka shaqeysa in halkan lagu helay oo nambarka warbaahinta gobolka Togdheer iyo institutionska iyo wariyaasha ka shaqeeyaba halkan nambarkoodu maanta ku soo baxay warbaahinta gobolka Togdheer waxay ballan qaadeen dhinacoodu inay maamulka gobolka iyo degmada si wada jira ula shaqeyn doonaan oo ay ka shaqeyn doonaan horumarka gobolka isla markaasna ay inta badan xoog saari doonaan inay barnaamijyo gobolka iyo bulshada badan oo ah ay maaragtay diyaariyaan gudoomiyuhu wuxuu yeeray saxaafadda dawliga iyo kuwa madaxa bannaanba waxaanu isugu yeeray inay wada shaqaynta ay markii horeba jirtay inay sii xoogeysnaato waxaan isla qaadanay gudoomiyaha iyo saxaafadda gobolka hadaanu nahay in aanu ka wada shaqeyno horumarka gobolka sidii loo tayeyn lahaa dhinacyada arrimaha bulshada in ay saxaafaddu ka qayb qaadato dhinaca wanaagsan in gobolka laga eego gobolka Barsaabku isagu baa noo madaxweynaha marka dhamaantii waxaan isla qaadanay sidii gobolka looga wada shaqeyn lahaa saxaafadduna ay uga midaysnaan lahayd in ay horumarka gobolka Togdheer ay ka shaqeyso billahi tawfiiq inaynu is update gareyno inuu soo nimaadno oo aynu marmar kulanno waa laga maarmaan sidaan u kulanno hay'adaha kale dawladdu ay leedahay inaynu marmar kala war qaadano muhiimaddu waxa ay inaynu isbaranno waliba dood wadaag yeelano wax isweydiino wixii idinkeedu ku qaldanaya ma qalad ee gafa ee idinku hayaa maamul ahaan hadday tahay police iyo hadday tahay xeeraan inaynu ka wada hadalno iyo idinku waxa ku haysaan bulshada iyo dawlad ahaanba in idinkuna aynu iska wareysano runtii waxaan u oran karaa wuxuu ahaa shir aad iyo aad u muhiima waanaynu joogtaynaynaa bishiiba mar baynu isu imanaynaa waynu ka wada hadlaynaa danta guud ee gobolka wixii deelqaaf ku ah ama qarannimadeenna ama gobolkeennana way naga reebantay sakaaro waa wariyaydi ka tirsan buu ahaa mudduu xidhnaa isagana waanu ka howlgalaynaa saynu sii dayn layn horena laba wariyo hore oo gobolka ah ayaa dembi galay oo la xidhay labadaba waa ogeedeen kaalintaan ka qaatay labadaba muddo yaro kooban kumay jirin waanu sii daynaa kanna waanu sii daynaynaa laakiin waxaanu doonaynaa idinkana etigiskii saxaafadda
saxaafaddu waxbay leeyihiin ethics bay leeyihiin ethicska inay ilaalisaan saxaafaddu ay leedayaasha xeeda oo aanaydun xadgudub ilaa xada inaan la samayn naasir cabdilaahi guuleed naasir k TV-ga caalamiga ee Somali Cable Burco kulan lagu taageerayay ciidamada madaniga ah ee loo sameeyay shabeellada hoose ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London sidoo warka inoogu faahfaahinayo wariyaheenna Maxamed Daacad kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay ku yeesheen xaafadda Shafar Buush ee magaalada London siyaasiyiin culamaa u diin aqoon-yahano ganacsato iyo haween ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose waxayna kulankooda ku taageerayeen ciidamada madaniga ah ee dhawaan loo sameeyay gobolka shabeellada hoose waxayna sheegeen inay taageeri doonaan ciidamadaasi qaadimo aan ka soo jeedno shabeellada hoose gobolka shabeellada gaar ahaan aan ka soo jeedno dadkayna aad iyo aad u baaba'san yihiin dowladii baqiyo badan u dirnay dhiga bay u dhigi waayeen laakiin waxa abaabulnay alxamdulillaah ciidan deegaan ah deegaanka nabadgelyadiisii ilaaliya weji kasta ka ilaaliya weji kasta ha lahaado wixii wadanka nabadgelyo shabeellada hoose wuxuu dhimaya anigoo ah Muxudiin Sheekh Cumar ana gudoomiyaha jaaliyadda South West UK waxaan aad iyo aad u taageerayaa ciidamada madaniga ee shabeellada hoose oo uu istaagay walilaahi alxamd guulaha ay gaareen ilaaha ugu mahad celinayna waxaan leenahay dhulkiinii hanta waxaan caawa halkan farxad iyo reereen ugu diray tahniyad buuxda ciidamada madaniga ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada ilaalada gobolka shabeellaha hoose oo ka midoobay dhinac kasta iyo iyagoo aqoonsi buuxa ka heleen Amazon iyo UN-ta ma ahan imaatinadii aan isu imaan jirnay waxaan isugu imaan jirnay annagoo baaq jeedinayno annagoo yacni qayladhaan ah annagoo baroor diiq ah ayaan isu imaan jirnay caawa waxaan isugu nimid arrin taas ka gedisan kana farxad badan caawa waxaan isugu imaanay in aan taageerno ciidamada madaniga ee ilaalinta shacabka shabeellaha hoose midnimada ay midoobeen kadib baaqyadii aan caalamka u jeedinay qayladhaantii aan samaynay in ciidamadii deegaanka gobolka shabeellaha hoose yihiin maanta kuwa yacni cadcad oo caalamka uu aqoonsan yahay runtii caawa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo xafladan oo lagu taageerayo ciidamada madaniga ah guulihii ay gaareen waa farxad aad u weyn waay maanta in aan maqlo in ciidamadii madaniga ah ee koonfur galbeed ee Soomaaliya inay guulo la taaban kara maanta ay soo hoyeen ay saddexdoodaba ay midnimo ay isu midoobeen ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka hore taas inaad ogaataan ciidamada Lower Shabeelle People Guard oo dhammaantood inta isu tageen ku midoobay United Native Army waxay kasoo la dagaalamayaan counter violence extremism marka CVE ayay maanta u soo istaageen iyagoo aan ka filanaynin maaragta dawladda inay support ka helaan dhalinyarada yaryarka oo u istaagay in ay difaacaan ha ahaato marka dadkeena qurbo joogta ah waxaan u baahannahay kaliya inaan taageerno haddaysan taageero helin wax ay qaban karaan ma laha anagu waxaan gobolkaasi shabeellada hoose dhaqan soo jireen ayuu lahaa iyo qaab ay ummaddu degan tahay u dhaqanto waxaan rabnaa aan daba joognaa fadhiyadii dhowrka ahaa ee lagu yeeshay gobolka dhexdiisa ay yeeshaan odayaasha dhaqanka culamaa u diinka waxgaradka iyo kuwoodii qurbaha joogay ayadoo xal loo raadinayay sidii loo heli lahaa gobolkaasi in uu noqdo sida gobolada kale ay nabadgelyada ugu jiraan inay ugu jiraan marka hore waxaan rabaa in halkan ku cadeeyo ciidamada iyo odayaasha dhaqanka isu tagay inaysan ahayn ciidamo loo abaabulay qaab qabiil ee loo abaabulay qaab deegaanka gobolka shabeellada hoose dadka degan ay ku midooween in gobolkaasi loo sameeyo ciidamo madani ah badbaadiyo shacabkaasi degan oo dhibaatooway sababta keentana ay tahay gobolkaasi wuxuu heli waayay tuulo u gudubta degmo u gudba
ayaa laga waayay sidaasi darteed dadka marka waxay ku qasbanaadeen in ayagu kacaan ay waxaasi dhibaatada jirta la qaado ayadoonan horor lagu ahayn qabiil degan ayadoona horor lagu ahayn dowlad jirta ayadoona horor lagu ahayn maamul goboleed jira ciidamada waxaa loo diyaariyay in gobolkaasi ummad kasta iyo nooc walba oo dhibaato ku haysa inay ka qabtaan gabagabadii xafladan ayaa dhammaan waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin ciidamada madaniga ah ee gobolka Shabeellada Hoose maxamed cabdi cali daacad Somali Cable TV London xildhibaanad Shukraan Xuseen Guure ayaa waxa lagu taageeray Minneapolis sidoo kale tan dadka taageerayaasheeda ayaa waxa ay sameeyeen isku soo bax sidoo warbixinta warkaan ugu soo diray Shiro Warsame Galbeete jaaliyada dalka Kenya iyagu ku nool dalka Mareykanka ayaa xaflad soo dhaweyn aad u heersareysa u sameeyay xildhibaanad Shukraan Xuseen Guure oo iyadu ah xildhibaanad ka soo gasha Garissa District ee dalka Kenya isla markaana ah musharaxad isla kursigaasi u taagan jaaliyada oo aan u kala harin ayaa halkaasi waxa ay khudbado kala duwan ku sheegeen shakhsiyad wanaageeda iyo hawlkarnimadeeda iyo in isla markaasna ay mar kaleeto garab taagan yihiin sidii ugu guuleysan lahayd musharaxnimadeeda Shukraan Xuseen Guure waqtiga badan waxaan ku bixin doonaa in walaasheen maadaama ayada ay kursiga hadda ay ku fadhido inay nooga sheekayso wax qabadkeedii shukri innaga ayaa markii ugu horeysay dooranay oo halkan ka riixinay oo dhabarka ka taabanay nasiib wanaag innagu markaynu dhabarka ka riixinay oo aynu karaamaynay innagu codka ma lihine laakiin awood badan baynu leenahay innagu oo aynu wax ku dooran karro waxna ku diidi karro Shukraan intayna noqon xildhibaan markay halkan ka baxaysay xafladeeda waan ka hadlay anoo guubaabinaya oo taageeraya oo oranaya waa in gabadhan ay xil qabato waan ku faraxsanahay maanta iyadoo xilkii noo soo qabatay muddo soo haysay inay noo soo noqoto iyadoo warbixintii waxay qabatay inala wadaagaysa magaca reerkeena geesigii ka muuqan jiray jiifkii madooga hashay iyo mayrano Xuseen jiifkii madooga hashay iyo mayrano Xuseen midii reer guuray sharaf baad mataansatay musharax xildhibaanad weeyo macnaha taqaan mar labaad hala doorto Shukraan waan ku mahadinay miibaan tagay magaalaan tagay Shukraan sida ragga iyo ka daran baa loo cisaynayaa wayna dooranayaan wayna ka dhan tahay inay doortaan waxaan rabaase inaan ree awoowgay la hadlo Cabdalla inaan la hadlaan rabaa barre Sacad inaan la hadlaan rabaa barre Sacad waxaan doonayaa ree awoowow Shukri marka idin timaado inaad doorataan dadka lagu soo doortay bay muxuu ahaay dadka ayaga ee xil ka saaran yahay ku jiraan arinta waxaan leeyahay muxuu ahaay muhashimiwa anagu community of our own banahay dadka disability-ga okay codka anaga waad helaysaa insha Allah ilaa 5,000 oo ruux 5,000 oo vote-kooda dhacayo oo disability ah ya Garissa County ku nool igoo hadalkii igu badinaynin aniga waxaan 2015kii baan haweystay inaan wadankii Kenya baarlamaanka galo tolkii dadkii aan ka dhashay dadkii anigii i waday oo isabood gareynayay waxaan doortay inaan ducada qaato Shukraan kursigan hadda hal sano u haray oo 4 sano ku jirta 5 sano next year bay dhamaysanaysaa waxaan isku wada raacnay inaan 5 sano kale ku soo celino ugu dambeyntii ayaa jaaliyada dalka Kenya iyagu ku nool dalka Mareykanka oo waliba xafladaasi ku qabtay magaalada Minneapolis ayaa waxay ka kala yimaadeen gobollo kala gedisan oo ka tirsan dalka Mareykanka iyagoon u kala harin ayaa codbaahiyaha waxa lagu soo dhaweeyay xildhibaan Shukraan Xuseen Guure waxaana erayadeedii ka mid ahaa midaas ma ogiye marka baarlamaanka aan joogo
shaqadayda waxay tahaan rabaa maanta inaan inta ka cadeeyo maadaama dadka ay iska dhihi karaan wax qabasho ay u maleen karaan isbitaal la dhisay mise guryo oo classes meel laga taagay mise building weyn oo la dhisay waxaas inay u aqaanaan development inay u aqaanaan intaas kali yaa dhici karta marka shaqada aniga la ii soo doortay mise kursigayga wuxuu yahay yaan rabaa xoogaa dadka inay dadka ka seen caaw inay ka faa'iideystaan aniga kursigayga mise kursiga hadda aan ku jiro waa kursi markii sharciga Kenya la sameeyay new constitutionkii la sameeyay Kenya 2010 yuu ku imaaday sharcigaas oo dhigayo 30% gabdho inay ahaadaan 2/3 gender rule aan dhahna anaga waa bill oo baarlamaanka la keenay ma marin wali uu socdaa oo wali dagaalkiisii aan ku jirnaa wala marin la ay way ku adkaatay laakiin constitutionka wuxuu dhigayay qaybtii uu dhigayana la siiyay kursigayga marka wuxuu ku imaadaa affirmative action wax la dhaho waxaa loogu talagalay dadkaas inuu matalo shaqadu qabanayana kursigan waa advocacy activism buu qabtaa ugu dambeyntii shakhsiyaadkii halkaasi ka hadlay ayaa iyagu taageero iyo kalsoonidoodaba ku biiriyay Shukraan Xuseen Guure kuna sifeeyay muddadii 4 sano ahayd ee xilkaas haysay in ay ahayd shakhsiyad shariif ah howlkarnimo iyo waxqabad dheeri ahna la timid ayna mudan tahay in mar kaleeto la taageero shiree warsame galbeedka telefishinka caalamiga ah Somali Cable magaalooyinka mataanaha Minneapolis St Paul Minnesota daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii TV-ga Somali Cable oo kaga imaanaya xarunta TV-ga ee magaalada Nairobi warkana waxaan la socodsiinaysaan oo Kawsar Cabdinuur Aadana aniga iyo dhammaan wariyaasha igala qayb galay waxaan kaga tagaynaa intaan warkaan mid lamida ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh